قيسيو ومدى الصومالية قف من إنه سبعين قبيل إنه سنين قنبه يا إنه ضعيف من أقوى سنوراده تشيشيا ورشاي وكاسوها مبادئ العاي كاسها مركي أنا كي أريد وضعك يجيب كوي وضعك يجيب ورا بحي ودوني أن أقول عن هل تاكو ملكية عن كمري باص كمري وجور كمري وحوار مري محايا أنت من تانكتري markii aan arkay dawladda Soomaaliyeed habka ay la dhaqantay qaabka ay u shaqaysay kaalka ayaa laga qabtay saddex habeen baa lagu hayay si fool xun oo ihaanaha la ila dhaqmay wallahi soo qaaday muqdisho la keenay waxa la ila dhaqmay si fool xun oo ihaanaha la ila dhaqmay markii aan arkay iyadoo intii galay gardo duubay oo indhaha la iga xidhay anoo cagacad oo qaawan lagu wareejiyay ciidanka Itoobiya waxay ahayd arrin aad iga cadaysay markii aan arkay in mar kaleeto airport ku yaala magaalooyinka Soomaaliyeed aan qiyaasaya inuu ahaa darafka xuduudda ruuxiga maahan bay dhamaynahay waa suuragal markii aan arkay intii laga soo dejiyay aan qiyaasay in sawirka laga qaadanayo isla markiiba diyaaradii lagu celiyay markii la geeyay goday oo isugu soo baxeen Soomaalidii qaybteedii xumay oo goday joog laanta markay ugu qabsadeen aflagaada markay iimiseen sayyi'aayeen markii laga qaaday anigoo ihaanaysan oo ka tiinadaysan oo lugaha ka xiran oo cagaha ka xiran oo indhaha ka xiran oo gacmaha ka xiran waxaan aaminay inaanan dal lahayn waxaa iga dhaadhacday oo qalbigaygu isweydiiyey inaanan dal lahayn waxaan arkay oo isii arxamay waxay iga bacday arrintaasi waa nuga aad waxaan ku baahay waxay iga bacday markii aan arkay oo ogaaday inaan leeyahay walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan walaalo Soomaaliyeed oo ka badan 30 milyan oo dareenka fooshan hal mar wada dhaqaajiyay oo heel iyo hool ila garab taagay arrintaasi iga bacday runtii waxa ii muuqatay inaan ahay qofka dadka ugu ehelka iyo arxanka badan waxaan gartay dhibaatada waxa ii geysatay inay ahaayeen ashxaas dambiir aan lahayn ashxaas shaydaan u hogaansatay iyadana waxaa u furan inay toobad keento waxaan hawlahooda uga hadli doonaa markale si fiican walaalayaal runtii ma soo koobi kara mahadcelintiina waa xamaasadaysnahay waa laga yaabaa hadalku inuu iga dhacdo waxaan markaa ku soo noqon doonaa hadalkayga qaybtiisa dambe wixii dardaarana iyo waxa aan ku shaqeynayay iyo habka aan u balqaadi doono waxaan sii wadanayaa mahadcelintii waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda ummadda Soomaaliyeed ama gudaha ha noqoto ama dibadda ha noqoto oo iyaduna qaadatay door aad u weyn oo gaarsiinaysa dhammaan shucuurta Soomaaliyeed qarba xaaladaydu halka ay marayso iyo qaabkii loo dhaqmay iyo habkii baarlamaanku u difaacay dhammaan saxaafadda ummadda Soomaaliyeed afka Soomaaliga ku hadasha waxaan u tabinayaa hambalyo iyo mahadcelin baan iyadana u tabinayaa lambar 5 waxaan iyadana rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaaraha dawladda Itoobiya oo go'aansaday aniga oo maxbuus ah oo god salki ku jira inuu iga soo saaro si sharaf iyo maamuus lana ii sii daayo uguna mashaqaaday xafiiskiisa waxaan u mahadcelinayaa ra'iisul wasaare Abiy Ahmed habka uu u dhaqmay ee isbedelka ee u soo daayay maxaabiistii ku jirtay jeelasha Itoobiya intooda badanna xaq darro u xidhnaa runtii ma aha taasi waxaan af ku soo koobi karno ra'iisul wasaare Abiy Ahmed wuxuu u muuqday qof cadaaladda iyo sinaanta u soo jeeda qof walbana doonaya xaqa iyo waajibka uu leeyahay inuu mariyo iyadana asagana waxaan dhihi lahay halkaa inuu ka sii wado inkastoo u dhiman tahay meelaha qaarkood dhibaatooyinka ka jiray ay sidii u socoto waxaan aaminsanahay in ayadana xal laga gaari doono aad baan ugu mahadcelinayaa qaabku u dhaqmay iyo qaabku siyaasiyiinta kale ula dhaqmay iyo qaabku xubnihii Soomaalida ahaa iyo oo la isugu xidhnay habku ula dhaqmay ay habku u sii daayay sidoo u maamusay aad baan ugu mahadcelinayaa gaar ahaan aniga qaabku ila tacaamulay iyo qaabku u sii daayay isagoo cidina tala ka siinin isagoo cidina wax qorshe ka siinin
عند كلية ويشاقي رق أيها كمية معها السجع ويشاقي هو شيء المركب وحكوي دي وهو حالنا يعني أنت هذين بدل يوسع العليلي مرة مسيك كفور عن سجعي وهو هذا يقول يا محمد ذوبي runtiina waxaad moodaa inuu jahan fiican qaatay siyaasiyiinta iyo madaxda siday uga hadlahayeen waan la qabaa in jahadaa la qaatay iyo marxaladda maanta oo eeg marxalad kala guura in si fiican looga wada faa'iidaysto lambar 6 waxaan u mahadcelinayaa dowladda Kenya oo noqotay dalkii labaad ee dadka Soomaaliyeed martina gelisay qaxootiyaal badan oo malay gaaraya isla mar ahaantaana xarunteedii ay noqotay xarunta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed xarun leeyahay oo laga dhiso dadka Soomaaliyeed dowladda Kenya waxay qayb weyn ka qaadatay difaaca iyo dibdhiska dalka iyo dadka Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan leenahay iyaguna waa mahadsantii waan mahadcelinaynaa sidoo kale waxaan jeclahay hay'adaha xuquuqul insaanka gaar ahaan Human Rights oo iyaguna si aad u ballaaran oo baaxad leh ogaada uga soo saartay bayaan ay ku cadaynayso dacatiga iyo jariimooyinka ka dhacay welina ka socda gobolka la yiraahdo Ogaadeniya ama Soomaaliga qaarkeed waxaan u soo jeedinayaa madaxda wadamada in ay tixgeliyaan riboodka hay'adaha xuquuqul insaanka oo dadka dhibaatada gaadhay si fiican u soo diyaariyo xaqiiqo يا taas markaan ka soo laabto walaalayaal mahadcelinta idin xaalad dayda waxaan ku soo dib ugu soo laabanayaa tardaaran haddaan maanta oo dhan wado saa u shaqayseen iyo sidaad u difaacdeen ummadda Soomaaliyeed qof walba oo Soomaaliyana uu maanta isku hadlaynayo dadkiisa iyo sida ay u tiitiyayaan sida ay u garab taagan yihiin waxayna gelinaysaa geesinimo iyo raganimo iyo dadaalkeen inaan sii kordhino waxaan jeclahay in aan dib ugu soo laabto mar kale oo soo bilaabo mahadcelinta dadka Soomaaliyeed walaalayaal idinkoo mahadsan waxaan idin cadaynayaa idinkana idin kula dardaarmay kow idinka waxaa diin dad Soomaaliyeed oo dal ka dhaxayso waxaan u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dhalashay iyo dhiig iyo dalba wadaagta inay midoobaan gacmaha isqabsadaan wax wada qabsadaan is-aaminaan wixii xurguf iyo walaalguba ee qulubtooda ku jirana inay iska dhaafaan isla cafiyaan sidoo kale waxaan jeclahay inaan u soo jeediyo madaxda Soomaaliyeed inay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dadka Soomaaliyeed madax cadaalada oo ula dhaqanta si daacad ah mideeya isu keena wanaagooda ka shaqeeya sidaa darteed waxaan leeyahay madaxda Soomaaliyeed xilka aad maanta haysaan beri waad ka degaysaan waxaana idinka hari doona raad taariikheed oo noloshiina ku yeelan doona raad aan ka hari doonin qof walba wuxuu maanta kaga tagay dadkiisa iyo wuxuu kula dhaqmahayaa waxay noqon doonaan raad lagu xusuuso taariikheed sidaa darteed dadka Soomaaliyeed maanta waxay idinka baahan yihiin hiil iyo midayn iyo isu keenid iyo in la cafiyo inay iscafiyaan si daacad u maamushaan taasay idinka sugayaan haddii kale waxaad yeelan doontaan raad foolxun oo weligiin idinku reeba muruga aan idinka hari doonin intay hadda waqtiga u fursad qaadaystaan madaxda ummaddu waa inay ka faa'iidaysato fursadda dadkoodana daacad ula dhaqmaan ilaahayna ka yaabaan wixii xumaanahay ay wadaan ay ka joogaan markaan saa leeyahay maaha inaan tilmaamahayo guruub iyo dad gaara maaha ee dadka Soomaaliyeed madaxdiisa oo in badan oo kamid ah calaasha ay ka timaado inaasaan dhiila waxaan jeclahay in aan wax yar ka taabto madaxda dowladda Somaliland iyo Puntland dowladda Somaliland iyo madaxweynaheeda Muuse Biixi aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa siday isugu tashadeen siday dadkoodii iyo deelkoodii u mideeyeen sida ay ammaankiisa u sugeen ay gaarsiiyeen doorasho qof iyo cod ah oo lagu kala badiyo haldeeri sidaa darteed dadka kale waxaa la gudboon ee Soomaaliyeed iyo maamuladooda
inay walaalahood kaga daydaan horumarka ay gaadheen iyo dadaalka ay sameeyaan waxaan leeyahay marka labada madaxweyne deriska ah ee dadkoodu walaalaha yahay dhibaatada waayahan ka dhaxaysay ee ka jirta tukarraq labadaa oday waa laba oday oo dadka Soomaaliyeed aaminsan yihiin inay aad iyo aad rag caqli badan yihiin oo aqoon-yahano waxgalo hase yeeshee waxaa nasiib darro ah hankii laga filayey iyo maanta halka ay dhigeen dadka meelaha qaarkood waxay isku haystaan 1 kiiloomitir oo la yidhaahdo tukarraq waxaa ku dhimatay dhalinyaro walaala oo gabdho iyo ragba leh yaa ku dhimatay waxaa ku gablamay waalid oo ilmihiisu ku dhintay waxaa ku agoontoobay carruur yaryar oo Soomaaliyeed waxaa ku rajoobay carruur yaryar oo Soomaaliyeed sabab la isugu qabsada hal buqcad oo kamid ah dalkii Soomaaliya oo dad walaala la isugu dilana ma garanayno sidaa darteed waxaan dhihi lahaa madaxdaas labada gobol labadaas dowladood in ay ka baxaan dhibaatadan iyo dagaalka inay ka saaraan dadkooda inay u ogolaadaan deegaanka dadkii joogay ee ka barakacay noloshoodiina dhulka ku dhacday aad u burburtay inay mar labaad dib ugu soo noqdaan dalku deegaankoodii oo ay dib u dhisaan kaaladahoodii iyo dhaqaalahoodii iyo waxbarashada ilmahooda dib ay u dhisaan intaas waa in aan ka codsanayno waan qabnaa dhammaanteen inaan sidaa uga codsanno innagoo isku mid ah in ay meelaha khilaafaad ka jiro iyo xumaantu in laga wada xalliyo si walaalnimada loo xalliyo waxaan aaminsanahay dadka Soomaaliyeed wixii khilaafa iyo kala qaybsanaana inay ku xalliyaan hab nabadgelyo iyo wada hadala inay ku xalliyaan aad baan u jeclahay waana ku codsanayaa waxaan u soo jeedinayaa dadka Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya ma jiro oo dhibaato ah ha yeeshee waxay ku midaysan yihiin oo ognahay waxaa jira cibaadada Ilaahay waxaan ahayn ku midaysan yihiin inta badan waxyaabo badan way isku khilaafsan yihiin wax badanna way ka midaysan yihiin laakiin arrinta mar walba khilaafkeeda istaagan ee Soomaali dhex taala waa arrin dunuubna lagu dhamaanteed waa arrin dunuub ku ah dadka wada waa arrin foolxumaan sidaa darteed cafiis iyo masaamaxa in la soo wafiyo idinkuna aad ka bilowdaan intii la fadhida yaan ka rajaynayna aanu soo noqdo aniga iyo xaalad anigu sidii aan ugu taagnaa dadka Soomaaliyeed 3 qodob ama 4 qodob ayaan idin caddaynaya oo ku shaqaynayo qodobka koobaad inaan dadka Soomaaliyeed ula dhaqmo si cadaalad ah oo sinaan ah oon lahayn gobolaysi qabyaalad iyo qof jeclaysi midna inaan ula dhaqmo dadka Soomaaliyeed laba inaan qayb ka noqdo xal u helidda iyo isu furidda qulubta dadka Soomaaliyeed ee walaalaha kana shaqeeyo noloshayda inaan ka shaqeeyo dadka Soomaaliyeed inuu walaaloobo gacmaha isqabsado taasna waa qorshahayga waxaa ii qorshe ah sidaan horeyba ugu taagnaa in aan raadiyo dal Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed oo xor ah oo ka madax bannaan wax kasta oo gumaysi iyo cadaadis iyo dadka hoosamaaraanta ma aqbali doono waxaan aaminsanahay in wixii khilaafaada iyo colaad ee ka dhaxeeya ummadaha dowladaha urur iyo dowladda in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadala oo ummadda la gelinin dagaal aan dhammaanayn taa waan aaminsanahay in lagu xalliyo hab nabadgelyo iyo wada hadala wixii khilaafa ee ka dhaxeeya dowlado iyo ururo oo inaga naga khuseeya waxaan kaloo jeclaan lahaa inaan iyadana ugu baaqo ra'iisul wasaaraha Itoobiya maanta wuxuu waajahay in uu ka gaadho xal iyo go'aan fiican khilaafkii dheeraa ama khilaaf maaha dagaalkii dheeraa ay soo wada galeen shucuubta Itoobiya iyo ta Soomaaliyeed wuxuuna ii sheegay inuu diyaar u yahay inuu go'aan rasmiya inuu ka gaari doono sidaa darteed waxaan ku boorinayaa inuusan arrintaa ka soo noqonin ee ka dhabeeyo xaaladda ka taagan colaadda geeskan Afrika ee Soomaaliya oo dhan saamaysay ee Itoobiya saamaysay ee kacdoonnada dhalisay ee abuurtay khilaaf iyo xataa Soomaali gudaheeda in waxyaabo ka soo dhashaan ee shisheeye Soomaaliya soo gelisay waxaasoo dhan waxay ka biqlahayaan xuduudtoodu ay tahay gobolka adduunka u yaqaano Ogaden region ilaa khilaafkaas
إلا أولاد هالك كتير تقول كان الحليانة ولي جيت بدي بيسو سيدا درت الله يقول كاس حلا جرب وحنا على هاي والله يا يدينكم مع صد يدينكم رنتي أن مرور بوجيه من فرحة قليليان إن أنا نقول باغو إن أنا أول طريقه إن هو لما أنت أول شيء واعطيني وراكم عينيا مدنمو سومالينمو walaalnimo uurfayoobi waxaan jeclahay inaan ku soo gabagabeeyo saddex soo in la qaado kow Soomaaliya toos laba allaawey dikii aaminaa awood leh ummad waliba aayaheeda inay garato iyadaa leh amnigayow markaan uurka hooyaday ifka uga soo baxay laydiisa uduggelin kii waan qariyow arnigayow midka kaa horseedee adoonsiga la jira sow ma oga isagu inuu ku leeyahay in intaa la qaado waan jeclaan lahaa ballanqaadka iyo shaqadaydu waa taa kama dhex muuqan doono koox gaar ah maamulada Soomaaliyeed layguna tuumi maayo kuma milmi doono waxaan u taagnahay Soomaalinimo waxaan ka shaqaysaa nin sheegay waxaan tagi doonaa dadka Soomaaliyeed meel kasta u degaya Kismaayo inaan tago xamar inaan tago inaan haddana ay ii suura gasho beledweyne inaan ka bilaabo hawlgal dhinaca lugta ama aan ka bilaabo Dhuusamareeb in aan tago Boosaaso wadada u hayo inaan soo jiireeyo in aan tago Lowicado inaan ka gudbo oon tago Murixine iyo Dumayra inaan tago هاي واحد أصحاب إن يديار معايا أما أنك عم كسيتون إلا قرو تو أنت بدل كو قادر أنا يسام سوشيالية يا تاريخ مين كالله يا حلقة في أنت عم كلا صعود أو قبل اللي أنت عم كلا صعود أنا هذا كو قادر يا واحد قرية أقويه هنو Soomaaliyeed iyadana saas loo soconaysaa goorta uu soo baxana iyagaan ka sugaynaa Soomaaliya hayso Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed heesiya yaqaan